walaal si walba ay dadku kuu jecel yihiin waxaad heli doontaa qof si nafsi ahaana qalbiga ooga buka oo iska kaa necab bilaa sabab ogow waxaa jira dad badan oo keliyata kugu necab horumarkaaga dartiisa ka xanuunsanaya guulahaaga oo ay dhibayso farxaddaadu se qofnaha ka oggolaanin inuu yaso dadnimadaada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa dhigay qof sharaf leh sidaa awgeeda cidina hoga tanaasulin karaamadaada hana u dadaalin si dadkoo dhani ay kuu jeclaadaan taasi ma dhici doonto oo ma ahan wax suurtagala horay ayaa loo yidhi raadinta raaligelinta dadkoo dhani waa yool aan la gaari karin weligii ha u noolaanin raaligelinta dadkoo dhan keliyaata raaligeli rabbigaaga taasi ayaa guuloo idilku gaarsiinaysee walaal haddaad ogaan lahayd sida degdegga ah ay dadku kuu iloobayaan geeridaada kadib wallaahi wakhti ma aadan ku lumisayn jacaylka dadka waxaa ku xaqiiqoobaysa dadku inaanay mudnayn inaad himiladaadoo idil ayaga dartoodaad u dayacdo ku dadaal xaqiijinta guulahaaga allah keligiina tala saaro runtii waad guulaysanaysaa markaasi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu